بلنتينو واشقو بلنتينو واشقو إذن بيانشي وذا هذا الكوح يهي سمراي براروغا هاوشا وبريرو الصبح برواقدا تاتي وبرها برهنا تبعدا اتكلا واحد كباردنا بايكا مكويسي بلنتينو واشقو بلنتينو واشقو بلنتينو واشقو بلنتينو واشقو anigoo ah Cabdi Jibriil Abuubakar madaxweynihii hore deegaanka Soomaalida waxaan halkan munaasabada saaka lagu la wareegayo xagafyada aan doonayaa inaan laba eray ka iraahdo xagafyadan 200 ee xabadood ah ee maanta halkan ay beeralaydu la wareegayso waa markii ugu horeysay taariikhda deegaanka Soomaalida ay dawladii intaas soo xagafa ay bixiso taasay ujeedadu ay tahay GTP2gu inuu dhanka beeraha noqdo 5 sano ee soo socotay ka turjumaysa annaguna waxaan fursad u helnay oo madaxweynuhu na siiyay xukuumaddu na siisay in 10kii mas'uul ee deegaankan soo xukumayay ay midiya hal tractor oo qalabkeegii wadata lagu wareejiyay waxaan leeyahay wad mahadsantahay madaxweyne wad mahadsantihiin xukuumadda deegaanku ومهتسن ياي بارتيغا حزبيغا ديمقراطيغا شعبكا سوماليدا إثيوبيا waxaan leeyahay arrintan waxay ka turjumaysaa in 5 sano soo socota aan dhinaca beeraha aan u jeesano iyadoo dhulkii la naga siiyay goday aanan diyaar u nahay inaan goday u baxno oo beeraha qodno wad salaamantiin bismillahir rahim horta magacaygu waxa la yiraahdaa Diiriya Umar Faahiye waxaan kamid ahay madaxdii hore كلك سواء مليس أرمان يمكن أركينا دوا إلهي مهدي ومهد الله وحانكم مهد نقينا حزب جاي دولة دوا إلهي قرب قلنا لنا تكلم ما بنشجع جا نير حمراء يري قيل دلوا يوارك كوكاوي عمرو جا وراجع قيل دلنا كتسا أنا وحلاها عمرو جا هالك سوقرسي دوا حمو تسي الحمد لله بالله الحمد لله waxaan laga helaa dawladaha waaweyn oo waliba qaan ku siiya yaa waxaan bixiyaa waa ilaahay mahadi alxamdulillah wanaana ilaahay noo siyaado ilaahay kana garab galo bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa aadan cabdilaahi qaalib waxaan ahaan jiray madaxweyne ku-xigeenka deegaanka soo ah 1990kii ilaa 1994 taariikhda Itoobiya markii aan xilka ka tagay maantana waxaan joogaa deegaankan joogaa runtii marka laga hadlo deegaanku maanta ugu dhaqdhaqaaq roon yahay wax qabadkiisuna aad iyo aad buu u fiican yahay waxaan imika annaga oo 10 nin oo mas'uuliyiintii hore ah iyo waxaan nagu wareejiyay cagafyo kuwa waaweyn ee 700 ee faras ah oo iyagu xoogow aad u weyn yahay marka sidoo kale 200 bay dhan yihiin waxaa halkaas ka cad in mataqaanay wax qabadka dhinaca wax soo saarka in loo jeestay ayaa halka ka muuqata runaantii markaan dhab hadalno annaguna waxaan diyaar u nahay inaan mataqaanay wax soo saarkan ka qayb qaadano haddaan shaqadii dawladda iyo siyaasadda aan ka fadhiisanay kamaan fadhiisanayna shaqayno marka waan shaqaynaynaa waxbaan soo saaraynaa waxaan tusaale u noqonaynaa shacabka Soomaaliyeed in uu mataqaanay wax nala mataqaanay uu nagu daydo imika degmada goday waxaan u jeedaa degmada beercaana la yiraahdo meesha west goday la yiraahdo ama galbeedka goday ayaa waxaan naga siiyay 15 hektar 10 qof oo mas'uuliyiintii hore ah 15 hektar nin walba 15 hektar baa la siiyay nin walba cagaf baa la siiyay qalabkii kale waxa dheer buurigii baasha jiidayay iyo wixii lagu isticmaalayay oo dhan waan tagaynaa goday baan tagaynaa haddii Ilaahay yiraahdo waan qodaynaa harawe iyadana waxaan noogu ballan qaaday inaan siiyo dhul saas oo kala ah halkaasna haddii Ilaahay yiraahdo waan tagaynaa sidoo kale meelo kale oo kala duwan sida dhagaxle iyo meelo kale oo kala duwan bay dawladdu noogu ballan qaaday inay dhul naga siinayso aad bay noo garab joogsatay aad bay noo gacan qabatay dawladdu waxa tusaale ah oo gacan qabashada kow ka ah mataqaanaa cagafyada aan arkayno xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida run ahaantii tallaabo aad weyn bay qaaday marka xaqiiqda laga hadlo tallaabo aad weyn bay qaaday wax soo saarka xaqiisa u jeesatay amnigii way sugtay
imikana waxa u jeesatay xagga wax soo saarka marka waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia Jaale Cabdi Maxamed Cumar uu mahadsan yahay kaabineyga dowladda deegaanka Soomaalida aad buu u mahadsan yahay xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia aad buu u mahadsan yahay qaabka uu hogaaminayo dowladda aad iyo aad buu u wanaagsan yahay annaguna waan garab istaagaynaa dhulkana waan qodaynaa waxna waan soo saaraynaa dadkana tusaale u noqonaynaa wad mahadsantahay baxa barwaaqada dahabkii oo birahana tabcada cidkale waxaad ka baridana baariga ma goyse ballanteenu waa shaqo ballanteenu waa shaqo ballanteenu waa shaqo ballanteenu waa shaqo aan idin bayaanshe hadalku wuxuu yahay Soomaali baraaruga hawsha uu bareero la soo baxa barwaaqada dahabkii oo birahana tabcada cid kale waxaad ka baridana baariga ma goyse ballanteenu waa shaqo ballanteenu waa shaqo ballanteenu waa shaqo ballanteenu waa shaqo shakhsiyaadka hormuudka ee dhanka wax soo saarka natiijada ka keenay iskaashatooyinka laga soo kala xulay gobolada iyo degmooyinka deegaanka ee dhanka beeraha iyo ururada dhalinyarada waxay ahaayeen kuwa gudoomiye oo dareen farxadeed ku qaabilay cagafyadan ee xukuumaddu ugu tala gashay in lagaga faa'iideysto beeraha magacayga waxaa la dhahaa Amina Abu Maxamed Guuleed waxaan nahay xaar iskaashato xaara oo la dhaho magaceeda baraka Allah marka waxaan nahay dad in badan ka soo shaqeeyay gacantiisa muruqiisa wax ku maalay in badan yaambo iyo caagad wax ku waraabsaday ku soo saaray kamid dhaliyay hadda alxamdulillah rabbil caalamiin anaga waa noo marshay eeganees dawladdu si fiican bay hadda isu kaana garab taagtay awal horna waxyaalo badan ay noo qabatay baa jirta waan ku mahadinaynaa ilaahay mahadii xukuumadda xisbiga sidan wuxuu soo abaabulay ilaahay baan ugu mahadinaynaa ayagana ilaahay idamkiisa ee guul iyo baraaro iyo barwaaqaha ku soo madaxoodan Allah raajiyo iyadana hadda cagafta waxaan ku tala gashanay waxyaalo badan oo hadda dhibaato oo hayso sida biyaha sida maxaan ku dhahaa dhulkii oo naga hadda xidhoobay oo dadkii iska daalay oo wax in badan baan soo shaqeynay inay wax badan noo qaban dambe mustaqbalka dadkanaga iyo ubadkanaga iyo dawladana dadkanaga aan faa'iido badan u soo hooyin doono saasaan ku tala gashanahay Ismaan Cabdi waxaan ahay gudoomiyaha dhalinyarada dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta halkan ku gudoomayno cagafyadii nologu deeqay ee xalayna la siiyay waxaan aad ugu faraxsanahay haddaan nahay dhalinyarada dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia inaan guulo muhiim ah ka keenno oo aan ka midho dhalino oo dhulkayaga tabcano khayraadka diin ee dhulkeena ku diihan aan ka faa'iideysano waxaan guud ahaan dhalinyarada dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia ugu baaqaya iyo shacabweynahaba inay ka faa'iideystaan dhulkooda diin si aan uga baxno cadowgeena koobaad oo ah saboolnimada saan ula dagaalami lahayn waxaan ku boorinayaa inaan noqono dad beeraley ah oo dhulkeena hoos ugu foorarsano nimcada dhulkeena taalana aan eegano waxaan xaggan uga mahadnaqayaa xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia oo ugu horeeyo madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia mudane Cabdi Maxamed Cumar iyo guddiga fulinta xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia dhammaan waxaan leeyahay mas'uuliyiinta dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia hambalyo ilaahay cimrigiina ha dheereeyo haddaan dhalinyaradan hayna saad nooga farxiseen annaguna dhulkayaga ayaan wax naga farxiya kala soo baxayna kolley faa'iido aad u ballaaran bay noo leeyihiin oo ah inaan dhulkayaga wax kala soo baxno inaan beero qodanno oo beeraley noqono si aan u tirno cadowgeena koobaad si aan uga gudbi lahayn faa'iidooyinkaas noo leeyihiin waxa kale oo ay noo leeyihiin inaan noqono dad iyagu isku filan oo isku filnaansho gaarno taa laftarkeeda way noo leeyihiin marka aad baan ugu faraxsanahay Soomaali baraaruga hawsha uu bareero la soo baxa barwaaqada
kale waxaad ka baridana baahika ma goyse ballanteenu waa shaqo balanteenu waa shaqo ballanteenu waa shaqo balanteenu waa shaqo idin bayaanshe buuda hadalku wuxuu yahay samalay baraaruga hawsha uu bareero la soo baxa barwaaqada taadkiyo birahana tabcada cid kale waxaad ka baridana baahika ma goyse ballanteenu waa shaqo balanteenu waa shaqo ballanteenu waa shaqo balanteenu waa shaqo magacayga waxa la yiraahdaa Ifraax Maxamuud Liibaan muddo badan ayaan dhulka wax ka soo saari jirnay muddo dhowr iyo 10 sano adu 12 sano ayaan ku takhasusnay qaybta seedka improve seedka ilaahay waa nagu guuleeyay hooyadu waxa ay jeceshahay inuu ilmaheedu wax helo xukuumadeenu waxay jeceshahay iyo madaxweynaheenu inuu dalkiisa uu maamulo ay wax helaan saas ay tahay wuxuu nala garab istaagay in cagafyana la siiyo alxamdulillah cagafti waana la siiyay shacabkana allaha garansiiyo say tacabka ay dhulkooda ugala soo bixi lahaayeen iyo waxa ku taasoon oo dadkooda saboolnimada uga bixi lahaayeen dadku aad baan ugu faraxsanahay intii aanu dadaal muujinayna ee wax soo qodayna in ka badan inaan qodnayo insha Allah ilaahay ka rajaynayna aadna waan ugu faraxsanahay maan ogeyn anigu cagaftan xilli laygu qoray laakiin dawladdu iyada ayaa fiiro dheer cid walba iyada ayaa og wuxuu yahay qof waliba waxa uu ku taqoosay wax ka shaqeynaya dawladdu way taqaanaa alxamdulillah rabbil caalamiin inna la siiyana waan mudanahay anigu shakhsiyan waliba muddo badan ayaan dhulka wax ka soo saaray eegana intii aan ka soo saaray in ka badan inaan dadaalo oo wax ka soo saaro ayaan damacsanahay wixii aan gaarsiin karo ee dadkaygaana inaan u sheego dadkana allaha muwaafaqada allaha waafajiyo xooggan la garab taagan yahay allaha tuso dadku haddii ay wax la soo bixi waayaan oo xukuumadooda garab istaag waayaan dhibkeeday leedahay xukuumaddu sida ay u garab istaagtay iyaguna inuu garab istaagaan ayaan insha Allah ilaahay ka rajaynaynaa annagana allahna waafajiyo muwaafaqada ilaahay ayaa iska leh anigoo degmada dambe iskaashatada rajo rumeys la yiraahdo waxay noo soo kordhinaysaa cagaftan si dawladdu faa'iido dheeraada ayayna siinaysaa maxaa yeelay waxaan ku dhibaataysnay waxaan ku qodayay gacanta iyo dibi iyo marba waxaan helaan ku qodayn hatta waxaan ku qodaynaa awr iyo dameero marka maadaama ay dawladdu siisay faa'iido weyn inaan gaarayna bari ayaabaan rumaysanahay sadaradeed mahadnaq baan ka celinaynaa wixii noo raacana dawladda waanu ku sugaynaa sida maalaamaatan jaraneetarada ama beerbiyodan hayno sida inay dawladdu noo soo biiriso aad baan u rajaynaynaa waanu ku sugaynaa marka waxay faa'iido weyn oo dheeraad ay noo soo galaysaa bilaha wax la beeranayo waxa dhacaysa intaad cagaf sugto ay ka habsaanto ay shinnidu ku dhaafayso maadaama ay saa tahay maaragtay waxaanu ka helaynaa faa'iido dheeraad ayaanu ka helaynaa mahadnaqna waanu ka jeedinaynaa waxa dawladdu noogu deeqday anigoo magacaygu maxamed cabdullaahi daahir kana imid muxuu ahaa degmada Hargeele iskaashatada la yiraahdo Fardowso waxaan ilaahay ku mahadinayaa maanta fursadan fiican ee Alla na waafajiyay dawladdana waan ku mahadinaynaa awal hore waxaan qabnay dhibaato fara badan oo gacantaanada aan wax ku beerano oo mar kasta haddii ilaahay laga waayin yaambada ayna rifaadiso mar haddii aan helay yaambadan muxuu ahaa cagaftan waan mahadinaynaa ilaahay baan ku mahadinaynaa dawladdaanadaan ku mahadinaynaa wabillahi tawfiiq cabdi macalin maxamed waxaan ka socdaa gobolka Liibaan degmada Dhekaasuufto iskaashatada la yiraahdo tawfiiq aan gudoomiye ka wax qabadka kan aad arkayso oo degmada noogu baaqdi dawladda deegaanka Soomaalida aad baan ugu faraxsanahay aniga xagayahan aad baan ugu faraxsanahay waan ugu mahadcelinaynaa annagana waxaan go'aan ahaan qaadanaynaa inaan dhulka muruqmaal si fiican wax ugu soo saarana ayaan aad ugu baaqayaa bulshada dhanna marka dawladdana aad baan ugu mahadcelinaynaa dawladda deegaanka Soomaalida